ognahay inaa cabtid boqol jeer xataa adoo cabsan ku aragnay waa cabtaaho ما waxaas faracba uma lihin naciimo awowyaashiisii baaba soo arkeen asaga xaggay u soo maray caana geela cabnaa maxaa ugu sheegi wayseen can you believe uu dhahay sagaal qof maanta ii imaatay sagaalka qofba qamro kala duwan ay ii keeneen mid hanasiyo ii keenay mid fadku ii keenay mid wuxuu ii keenay grey goose hebelo balaayo oo qamrooyin you name it waa u keeneen besankee burdaasho waxaan u maleynayaa dadka karaana banacay u maleynay meeqa dambiye geli kara qof bini aadan naftiis ka geli kara fiitole landere lafti galab bade majarteene maxamuud salamaane umar maxamuude oo markaan saa u fiiriyo aan dhaho ilaahu adaa mahadnaan ka soo kacayaa oo niciimaha ku dambeeyay umar maxamuud gabdho badan dhuxushay magaalada dhuxushay u dubtaa oo niciimaha ka ilooda oo niciimo ah way soo socotaa weli muudada maanta wada sug gabdho kale isku maleynaya ku dar naciimo diamond gabartay ya faarax shirwac al yiri faarax shirwac ha hoos u sitay nima hooy maamada Allah u naxariistay raaxaj zamaat ha reegisata hawa bogtay raaxaj reegisad ba aan taaganahay naciimo iyo qays ya qays jacaylkiisa ama jacaylka waana ii qabo social media kaliya mal ku soo bandhigi karno ka ani u qabana social media laguma soo bandhigi karo to be honest with you idaacada laga hadlo qays waxyaabo badan aan ka qoras waxyaabo badan meel ku yaalo de life hada uga sheekeeyana intay qaadaan YouTube ka geenayaan dhaga furo gabdhaha badan oo waxa jiro aan kula yaabay oo ilaa hadda maskaxdeeda macnaha gali la naciimo dumaashi xirko gabdhaha waiting listiga ku jiraan ha maqlaan si fiican codka kor ugu qaad dhagahana ha furaan ayagana walaal dadka dada waiting listiga ku jira maya dhanka jaceelka sheegaya ka casay sugaya ka soo qaad waayan dagaalo fara badan oo waxaan ku jira baan moogtahay marka waxa iska ah maanta dhan dagaalan ku jira waa qaylina habeenkii marka de qof shaqeeyana waa ay moogtaa shaqaan jira marka soo noqdana buuq iyo balaayo ku jira marka habeenkii marka seexdo marka aan waxba aanu kala ogeyn waa iska seexanaan moogtaa markaan seexdo badana habeen barkii marka isrogo kale waxa soo kici jira asoo ay kor fadhiyo quraan ugu aqrinaa ما شاء الله تبارك الله kaasa yaabi jiray waa nixi jir maxaa dhacay markaas wuxuu dhigi jiray maanta dhan buuqii dagaala ku jirtay isha dadka kaaga baqa marka maadaama busy aata maalintii dhan habeen markaa seexatida quraanku u akhriyaa ما شاء الله waxay nagu wareeriyeen wiilasha ogaadeen romantic maahan ka warma romantic sheekhnima ku sii darsan walaal kusooyin badan taas ku sii darana waa idiin haaya insha Allah aniga sheekeen mar idinka sheekeena weliba waxaa tiraahdaa wiilasha coolyaan ya wiilasha sagaalka dab wallahi bila romantic hadan waxay ku sii darsadeen sheekhnimo okay ka anaga fanaanka taa niskintu soo gabadhan oo quraaminaya ayaan laga dhamaysanin wiilasha ka soo gaara wiilasha dhan baa romantic de aniguna kuma kaahilan arkay haydihin ma sha Allah sheekada qays ma ka sheekaya sheekada Sweden kaaga dhacday Sweden ma xasuustaa marka Sweden aadaysay habe sheekadii kugu dhacday ma xasuustaa marka hotelka degtay nimanku waxay ku keeneen dadku soo dhaweynay ma sheekaya ada qays baaragtay banacay marka social media ay meelaha soo gala dadku waxay ka aaminsan qof waxay aaminsan dadka badana boqolkiiba de lagama badhicin karaba boqolkiiba 90 iska dhig Soomaalidu waxay aaminsan inuu balwad leeyahay hadda koor marka uu travel gareey Sweden markuu aaday hotel uu degay dhalinyaro oo imaatay qof kasta oo imaado wuxuu wadaa marka dhala qamra besanka qamriyo wadaa balwad kala afka ma gelin xataa sigaarka nimanka cabaan iyo shiishada foorfanka loo cabnacab jim waa balwadiis markaas qof walba iridu ku soo garaac wuxuu wadaa dhala qamriya uu yaabay qayso yaaban maskaxda madaxa weynaaday war maxaa dhacay kasal may caadi waa cabtaa qays waa ognaa inaa cabtid boqol jeer xataa adoo cabsan ku aragnay waa cabtaaho ما waxaas faracba uma lihin naciimo awowyaashiisii baaba soo arkeen
asaga xagee u soo maraysaa caana geela cabnaa maxaa ugu sheegi wayseen can you believe uu dhahay 9 qof maanta ii imaatay 9ka qofba qamro kala duwan ay ii keeneen mid hanasiyo ii keenay mid fatku ii keenay mid wuxuu ii keenay grey goose hebelo balaayo oo qamrooyin you name it waa u keeneen bisankee burdaasho waxaan u maleynayaa dadka geli karaan banacay u maleynay meeqa dambiye geli karaan qof bini aadan naftiis ka geli karaan because waxay arkeen in adeer dadka cabaayay arkeen maybe noocaas ay maleynaayeen they all believe it inuu cabo ma horta waxa weeye horta dembigaa kale sax ilaahay wax uu quraankiisa ku sheegay qofka intuu asagoo og oo quraanka la baray oo loo fasiray intuu dhaqaaqa soo biyo oo guulaystay weligin ma aragteen horta oo horumar gaaray weligin ma aragteen may tada kale qof qamri cabo wuu dhamaadaa noloshiisa inta ka dhiban ma dhisnaado asagoo xataa oo nin weyn oo xoogaa dee cuslaaday sida qays oo kale ma ogola laakiin sida qays oo kale intuu cuslaaday 17 sano fan ku jiro qays saas uma qurux badnaa saas iskuma haysteen qof balwad leh maba is haysan karaan ma cuslaashada ka reebin adeer qays ma cuslaanine way ka muuqan lahayd qays anoo yar gaalka ay ku dhageysan jireen adoo yara dhegeysan jirta biya naciimo inaad ka yartaa waan ognahay laakiin wiilka ha naga weynaysiinin de saa wax u wadaa reer minneapolis ilaa banacay alhamsuliga ninka inaa ka yaraa u sheeg maya taas waan og taas anaa kuu qaray laakiin asagana wiil yaroo 20 jira waa mooyaa 20 jir ka adag bir weeyaan aad u weyn asaga way garanaa laakiin Fatima Firi sheeke wax yar baan idin sheegay bana ma joogtaa kan joogaa waa ku dhageysanayna noo sheeg dadka iga xun baan malayaa dadka kaamir macaadi ku maqlaynaa qayso commentiga ligu jafooya dhiiga si fiican ku dhageysan si fiican ku maqalnaa asaga dhammaanayna naciimo shactira socota waa kula banacda Minneapolis la joogta asaaba guri kula deganay ku socayna adeer asiga oo yahay bajaalanji naga dhaxay markaas amal ma aamina hadda dadkaana booliska fasalka qaybta weyn waay ama oohinta naciima weyn waay ana ii codeynaa ina weynaa because konton dadkan dumarka Soomaalida mar walba ayaga weyn soo ma ogid 20 sano haddu ka weeyaan ninka taa waxa lagu leeyahay naagta weyn ha ma naciimo wallahi markayna ku xigeen ilka casab ku socayna adeer sida qayso ma horta ma kulligeen waa idinka weynahay da'dana ceeb ma aha waa ilaahay inta jirna in ka sii badan ilaahay baan ka tuugna cimri dheer cibaado sani caafimaad khayr qabo dhammaanteen dambigeena horta Allah dhaafo midda kale ilaahay quraankiisa waxyaalo badan buu ku sheegay wax walba oo maaragtay dunidan wuxuu xaraan oo dhan noo sheegay hadaa waxaan baasha xumada laga dhawaajiyay horta baashaas quraanka ilaahay buu ku sheegay midda kale nin weyn oo aniga fiir weyn oo fiiri nin weyn oo 7 feet tall oo laba lafood wax arkaysa garbaha labado waay qalbiga isdooriyo maskaxda qabriga dartiis exactly marka wax benefit qof aqli qaba horta ma suubinayo ma garatay maxaa kaloo ku soo haray wey hadda ka hor baa waxa dhacay sheekar baan idinka sheekeynay 1995 ka dhamaadkeeda ahayd hoosingow ayaan ka soo baxnay waana xasuustaa gaariga waxaa waday wiil inaad arkay Allah u naxariistay oo kulli gabdhaad waliba baaniyo way yaqaanaan u malayaa Fatima oo abiis sidoo Xuseen waad xasuustaa siidka culya صح نادر صح هذا الشيء حسين أكيد جيبان هذا كام مقلاني قوا حسوستاني ها عبد النور سيد بقاري وذي
1995 waa xasuustaa gadaal baa anaga xaaji qabsiin bahe xajiyada oo waad xasuustaa alaabti oo laba shirleyda idinkina kusoo gaadheen ma garanayo adi nacima gaalkacya joogtay gaalkacya xajiyadaas ma soo gaarin waagaas marka hoosinko meel dhaan ka soo baxnay dhaxdaa naloo galay waan xasuustaa ninka asaga xabadaan nagula furay cabdinuur siid xabadka hoostiisa ka gashay aniga maamada agteeda fadhiday way dhimatay aniga 3 xabaa ay galay waxay ga galay meesha boodida lugta laba iga bax xabada igu hadhay lama bixin karo taariikh bay ahayd cabdi xasuustaa lama bixin karo meel xubba ku jirtaa ninka asaga ahaa nin aqaanu ahaa hoosinko markaan kasoo baxnay dhooble intaanan gaarin bay dhaxda noo galeen adiga dagaal beeleed buu iska ahaa ninka asaga ahaa afarta qof maamada marka lagu dara 4 qof aan dhintay anagoo 3 ana waan dhaawacanay cabdinuur sid horta alxamdulilah naaska hoostiisa gashay laakiin dhaawac uu noqday gaariga saa waday ani sidoo kaleeto yar kaleeto asagana oo suldaanka u dhalo reer cali magaciisaan iloobay abihiisa caan ahaa laakiin adiga ninkii asaga ay naxabaday baa horta maalin maalmaha ka mid ah ceelka dhoobaalay inaad taqaanaan mooye ceelka dhoobaale asagoo xoolo ka waraabinayo iyo aniga iyo wiil kaleete oo la yiraahdo maxamed aadan oo asna adeerka dhalo coolyahan oo reer gaaba fuqududube isla socono ninkii baan aragnay waxaar baan ii sheegay ceelkii baan ninku ku qabanay iskarti ayaan u wacay waa la qabtay ninkii waa la wareystay cabdinuur siid baa allah u naxariistee loo wacay war ninkii waa kan buu dhahay cabdinuur siid marka nin aada u degan buu ahaa waxyar maxaan rabaa calaashaan maanta jaanis baan idinku haystaa idinka inaan waxyar idiin sheego marka dadna way dhintaan oo wuu dilay inkastoo nin kaleetaa la socdaa isaga qori AK-47 buu watay ninkii waa la qabtay ninka kaleeta adiga marka dambeeto wuu qiray waa la kulleeyay wuu qiray asiga suubiyey waana fahmi karaa marka dagaal waxay ahayd male maqlaa inaadeer waa ku salaama oo sii degaa nimcooy adiga inaadeer jamaal soo qabo qays buu waa inuu soo adiga waa uu soo qoray sawirada ku soo qoray baana tagin wax yar barraba inaan kuu sheegin adeertoy sheekada dhameeya banac maya aboowa dhahay waa kaaga degaysaa suuqa dadka baanaxa marka ninkii asaga ahaa cabdinuur siid baa marka annaga meesha hogaaminayay abasiidna markaa magaalada dhooble asaga haystay cabdinuur siid baa marka waxaa la weydiiyey ninkan maxaa lagu suubinayaa waxaasuu suubiyeysaa cabdinuur siid wuxuu dhahay wax aan u qabo ma laha aniga laakiin wixii sharciyan ee diinta ku saabsan haddii idinka a ku suubinaysaa idinkaa jirta balferia cabdinuur siid baa anaga waxaan ku dhadhegeysayaa magaalada cabdinuur siid baa xukumayay ninka asagaa xabadda dadkana ku dhameeyey annagana dhaawaca naga dhigay sidii ayada ahayd buu ku cafiyey marka waxaan idiin sheegaa dhegeysta naciima fatima iyo boqoradda banac ama canab waxaan idiin sheegaa canab ahaa qof alla qofkii bini aadane oo dembi idinka galay inaad cafisaan baan rabaa waxaa idin dhahay dhegeysta saasaan bas waxba hal feyri qofka markuu adiga idinka wax idinka sheego oo idin caayo allah subxaana watacaala ujeedo waa mid asaga feyri qofkii idin dulmiyo ilaahay baa ujeedo waan fahmi karaa qofka biniaadanka marka la buusgareeyo la riixo limit nimcooy waan cafis badanahay exactly waxaan rabaa maanta sidoo kale biyo waxyaabaha qaar xarasho qabta allah subxaana watacaala wuxuu ugu jecel qofkii qof cafiyo صح qofka walaalka uu khaldami karaa bini aadam way labaato halkii qof intaasoo shaydaanba la xiriirto waxaan idinka rabaa
in aad waxba uqdad qof u qaadin oo aad iska cafisaan adduunkan intaan joogayno allah subxaana wa tacaala baa og صح waa macnaha sheekh umal baa xalab soo wacay qaysow dhiiga aada u mahadsantahay ugu badana boobe thank you aada u mahadsantahay ma wallahi cafiska waa loo baahan yahay cafiska waa wax wallahi aad baan idin jeclahay kula dagaalaa qof oo haddoo kala imaagay maantoo kaleeto oo wuxuu arkaa beriyoo kale anoo qofkii u naxaay video qofkii oo la maagay ama waxa star ka dhaay maal iska daayay gabadha ama wiilka maal daayay anoo qofkii u doodayo arkaa markaas uu dhahay ka adig gabadhi ku caynays ma daraad meeqa jeer ani asaga isku dagaalnay صح ما شاء الله ما عكسكو ونعكسين waa u difaacay qofka sadayasho difaacay markii kaftanka markii laga saaro inaa qofka cafisid adigay dan kugu jirtaa صح waxaa la dhihi jiray intaad uqdad isgelin lahayd ama qofka caloosha wax ugu hayn lahayd caafimaadkaa ku jiro inaad qofka cafisid deen go-aana ka gaari kartaa qofka inaad la sii sheekaystid inaad la socotid inaad maxaa la dhihi jiray lagugu ag sawiro go-aan baa ka gaari kartaa laakiin qofka inaad cafisid aakhiradaadana way u wanaagsan tahay caafimaadkaagana way ku jirtaa caloolkusidka habeen kastaan baa cafiyaa markaa seexanayo qof walba waa cafiyaa saasaa wanaagsan هذا وين everybody عافية ما كلا ريبة حتى ما كلا صار واحد إله أنت الظلم ذا واعفي أنت الظلم صينا أنت الظلمين إله يقعفي أنت الظلم ذا واعفي عندها ما كاس الصح ذا نعيمة أنا وساسة والله لكن سأنا أبغى معجزين كأسكو أرك قفك معلنته يسوع معلنته دم قفك أكام تيجي سحار كان مقع بدش معجزين كسدول قام مسكو أركته ما فيري والله عبد والله تعبنا هذا فيري نبأ هذا الديق هذا وصل قبنا قناعي حاسكان u sheegay حاسكان hadda ka hor u sheegay wiil waxa jira fiiriya wiil adeerkay dhalay oo maalin walba wuxuu subi jiray commentiga ugu caayay jiray waad maqashaan baan maleeyaa ها سوعا نادر سوعا jigjiga qadkeedaasaan iska yahay maalin walba arki jiray waxyaalo hataa caydiisa qaar ku qosli jiray maalin maalmaha ka mideed waa nin weyn adiga ninkii horta waan waayay commenti ma soo qoro facebookiisa wax ma soo dhigo waan soo baxay intaan imaaday aniga marka ogaadeenaya imaaday jigjiga laba week markaan joogo ninkii asaga ahaa ayaa facebook iga soo wacay wiilkii asaga ahaa inuu dhinta halis u gaaray waxaa ku dhacay cudurka la yiraahdo stroke waa taqaanaa Soomaa Fatima Salaam stroke si fiican stroke ya lug iyo gacan ayuu horof ka noqday waxaan ku dhahay dhageysiya صح markii wiilku wuxuu ii soo wacay inuu dhaho ina adeer adduunkan qof ku waaraya iska yaraya inaad cafisaan ka rabaa lugi gacan horof ka noqdo ma dhan نعيمة بيدي وقصلة أنا بيسأل الكل قصلة موجودة مركو شيكينا ما هذا الكات الراب وايس كده فيا بو لوجي gacan horof ka noqdo استغفر الله هاي قيسو مكاسنا marka qof walba hadda waan cafiskan ka hadlaynay ma fahantay maadaama saddex gabar baa imaatee dhammaada maxaa tahay السلام عليكم عبسية كليا كوين السلام سودو بايو وانيد السلامة قيسي وين بانو سلامة يا نعيم وفاطمة الصلاة ما شاء الله you guys are my two favorite couples إلهي رنت الشيء really and قوليستا walaal qays aad baan ku salaamayaa intaad adduunka ku nooshihiin
mid baan idinkaga tegayaa Hay. hooyaa beri waxay igu tiri anagoo Kenya ku dhashay marka hooyo waxa weeyaan dadka aad yacni u taqaana mahmaahyada iyo waxa marka waxay naga waaninaysay Soomaalida guud ahaan waxay tiri hooyo ninbaa guriisku soo xidhay bay tiri Hay. ninkii bay tiri fartii uu taagtay Hay. goor fiidana way ahayd subaxii markuu soo baxa lagu yidhi fartaa waxay tiri Soomaalidu inay mucjiso yihiin bay tiri Ha. horta waa bilo loo baahan yahay tiri waana mucjiso dadkeenu ilaahay ha barakeeyo ilaahay waxaan idinka baryayaa isha bini'aadanka iyo xaasidkeenu ilaahay idinka hayo kolay sharafta aad leedihiin ayaa hadalhaynta badan keenaysa marka guulaystan idin leeyahay Mahadsantahay Khalid. qaysna si gaaraan u salaamayaa naciimo faadumo khayr baan idin rajeynayaa sidoo kale qalbi maasha Allah ku salaameen Aaminay Insha Allah. Hawaan. TikTok ayaa u soo guurtay ma ka soo guurtay Snapchat ها snapchat waan kasoo gura naciimo